السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين بأخيار تهوض أنا جلس عطاي واحد كسر دواتان برامج كني فنك يسوقان تو حلي جانا وكلاء أتكلس عن شرتين حروت تي في جريال أو كل هي مجال حرجيسة هذا بعض داوديال برامج كفنك يسوقان تا أيام تطبعت كيف وحنا ديسو حولها الفنان كاسيو مركز أدوتش 20 داودياشا هذا بعض داوديال فنانada caawa barnaamijka ku martida marka aan magaceeda idin sheego heeso badan oo ay leedahay ayaa markaasi maskaxdiina ku soo dhici doona bal ka hor dhici maayo dhinaca heesaha haddaan idin sii bilaabo ama aan saddex ama laba idin sii sheego waxaan soo qabanaya horta fanaanada barnaamijka caawa igu martida waa Hibaaq Gobaad aan ku soo dhaweeyay barnaamijka fanka iyo suugaanta waad mahadsantahay walaashay Faadimo Riyaad aadna waan kaaga mahadcelinaya barnaamijkaaga quruxda badan aad qabatay mudnaanta koowaad adiga iskale in badan baynu isniri bal aad Hibaaq barnaamijka qabataan oo daawadayaasha qaybahooda kala duwan ee ku xidhan barnaamijka fanka iyo suugaanta balse laakiin waqtigeena si weyn in badan laakiin caawa malaha daawadayaasha iyo anagu aad banu nasiib badan naga filayna aniga laftarkayga wadan Ariel iyo Faadimo Riyaad la joogo ma nasiib yari sawa daawadayaashu marka aan Hibaaqay barnaamijka fanka iyo suugaanta intaan riwaayadaha iyo qaybaha kale ee marka aad caanka ku tahay aynan gelin waxaan doonayaa bal daawadayaal badan ee fanis badan oo kugu xidhan ayaa qaybina haday doonto taariikhdaadii ay haysay oranayaan Hibaaq xilligaas bal inta kale inagu soo biiri doonto inta la socotaba bal waxaan doonaynaa in la wadaagno dabcan Hibaaq waa tuma tolo Hibaaq magaceedu saddexna maxaa la yiraahdaa Gobaad bay dadku inta badan maqlaan waa mahadsantahay walaashay magacaygu waa Hibaaq Yuusuf Cabdi waan saraacinayaa deelayaan ku dhashay waa adabtiso waan abtirsan magacaygu waa Hibaaq Yuusuf Cabdi waxaan ku dhashay magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco ma sha Allah maxaa inta loo raacaa dugsi hoose dhexe sare waxaan ka soo dhameeyay Sheekh Ibrahim Secondary School ma sha Allah fanka waqtigii aad bilowday iyo talow xilligii aad halkaad ka bilowday iyo arrimahaas bal adigoo noo yara raacinay fanka Faadimo waxaan bilaabay 2016 dhamaadkiisii waxaan ka bilaabay heesaha riwaayadahan ku xijiyay xaqad magaaladeed ka bilaabay Hargeysa ma sha Allah Hargeysa ka bilaabay waxaan ka soo bilaabay Burco xaqaas ay dabcan ku soo qabanaysaa bal hadaba anoo qaybaha kale ee waraysiga markaad aragtaan Hibaaq waxay leeyihiin daawadayaasha kulli niyada koonay naga sideen caawa barnaamijka in badan baan markaas aynu afaguri doonaa qaybaha kale bal xabad heesan doonayaa oo Axmed Aarsha qaado dabcan jawaabteedii hay bal inaynu ka dhigno fiiska hore daawadayaasha indaas ay u kala qaadaan caashiq wadan guud weey caashiq wadan guud weey waxa tidii caashiq waa wadan guud isna wuxuu wadan guud ma horta qof walba soo maarmaan baa tiri aad walaga ma maarmaan heesta eriyada wax la gudoomiyay qaaliga daha Cabdigaas hantan aad uga salaamayo laxankana macalinka weyn Qaasim Macruuf isna waan salaamaya iyo suudaanka muusiga Saxadiid Maxamed Saxadiid Samasaga iyo family-giisa bal heestaas iyo arrimaha ku timi bal mid la yar wadaag iyo sababta jawaabta keentay iyo waa sax Faadimo jawaabta waxa keentay gudoomiyaha heesta ila jecel asaga sameeyay markuu sameeyay asagoo meegur heesta ma qaadayso ay soo bandhigay haawan baan dabadna xagga faalada ay arrimaha wax ku timi waxay ku timi iyo meel ka socotay laakiin heesta jawaabteedu baan u deynay ayuun baan u deynay absolutely daawadayaal bal dhinaca farsamada iyo engineer Barkhad Caas oo markaasi qaybaha barnaamijka ku hawlan aan ku wareejiyo waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan wadareenka isu keena lawaan biyo tuyo abidko dabka la qaadan ashaqu tanguud weeye wadareenka isu keena lawaan biyo tuyo abidko dabka la qaadan
dad allow jacaylkaygu doodiina kama maarmo wararkiyo durbaankiina anta uu ku dararaaye weligiini daba jooga dad allow jacaylkaygu doodiina kama maarmo wararkiyo durbaankiina anta uu ku dararaaye weligiini daba jooga qalbigayga kii deeqay inaa yeelo ama daayo doorashada hankayga leh idinkana digniintiina diidi maayo talaadiina qalbigayga kii deeqay inaa yeelo ama daayo doorashada hankayga leh idinkana digniintiina diidi maayo talaadiina darankiyo hoggaankiisa qalbigana dawaadiisa ishqigana dabiibkiisu waa dooqahaga maanka darankiyo hoggaankiisa qalbigana dawaadiisa ishqigana dabiibkiisu waa dooqahaga maanka dad isjecel awaashooda carrabiyo dibinaha heedhe istanqaaba awgoode dibu sixita hawshaydu waa doodu furan aadmi dad isjecel awaashooda carrabiyo dibinaha heedhe istanqaaba awgoode dibu sixita hawshaydu waa doodu furan aadmi qalbigayga kii deeqay inaa yeelo ama daayo doorashada hankayga leh idinkana digniintiina diidi maayo talaadiina qalbigayga kii deeqay inaa yeelo ama daayo doorashada hankayga leh idinkana digniintiina diidi maayo talaadiina diidi maayo talaadiina
diidi maayo taladiina caashaqu danguud weeye ayay tiri hibaaq gobaad oo dee halkaas u noqon mayna ma filaya daawadayaal waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu horeeyay ee barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta iyo hibaaq gobaad hibaaq habeen wanaagsan mar labaad waxaana wanaagsan mar labaad dhinacii heestaad kusii yaraa ku talaftay ha hibaaqay adigu ma istiraahdaa dhinaca jaajilada iyo xaggaas ayaad aada ugu fiicanta se inta ugu badan waa lagula jeclaada horta dee anigu kulle isma sheegi karo moogtahay laakiin foodbagaad eegaysa wixii marka degto waxa kaaga yimaada moogta marka dadku inta badan kolley xagga jaajilada way igu ammaanaan aada way ugu ammaanaan adigu markaa ma isku ogtahay oo aada bad ma jeceshahay adigu xagga marka heesaha laga yimaado ha aad baan u jeclaa xagga jiritaanka waan jeclaa waxaad ugu wanaagsantay waan jeclaa qof waliba waxa uu jecel yahay buu awoodda saara soo midda kale waxaas marka lagu ammaano oo si jeclaanaysa lagu yiraahdo waxa aad ku fiican tahay adiguna kulli xoogaad sii saaraysaa sii saaraysaa hibaaqay marka aad wadooyinka marayso ama aad meelaha meherada waxay iibsanayso ama aad maqaaxyo kale aad day ka cuntaynayso kale ma indha shareer baad isticmaashaa sida hablaha mise caadi baad maya anu indha shareer ma isticmaalo weligee ma xidhan sideedaasaan u socdaa markay asxaabta kugu arkaan ama dadka faniskaaga ee aada saragtaan oo kale maxaad dareentaa waan ku farxaa markaan arko bulsho badan ay garanaysa amba ku ixtiraamaysa aad aragtid aad baan uga farxaa waqti baan la qaataa laakiin kama indha xidho waxaad leeda xagga anagu iskuma wanaagsan aad riwaayadii qooto ayaan islahaa baldaawadayaasha yar ka xasuusi marka aad idinka iyo yuusuf matalaysaan laba yuusuf aan horta la matalay caagaagii hala waasho labaduba laba yuusuf aa la dhaha kee marka yuusufkii kale caagagaan han hala waasho kaasaad aada ay dadka indhahoodu kulley usoo jiitay bal maxaad dareemi jirtay markay dadka kugu yidhahdaan gabadhii yuusuf ama asxaabtu wallaahi horta dee waxaan u badheernay wixiina lagu yidhahdaba moogta waxaa nin durbaan tuntay ilaaq dalbe dee wixiina lagu yidhahdaba waan ku niyad samayn wax kasta oo la yidhaahdo nagaga soo baxa feedbacka kaga soo noqon jiray asxaabtii daawadayaasha waxaa la odhan jiray un dee inantii qaar baa moodi jira dhab inuu ii qabo inan iminka wariyaayo puntland t v ka shaqeyso mulkheer cabdiweli jaamac ladhahdo aan saxaafadda wada baran inaad garanaysana oo malaynaya ayaa tiri de hooyaba xitaa intay la soo shitay waa hedhay hooyaba xitaa guri ninku caadi buu guursaday ma waxaan marunba kii kalena aroos baaba loo dhigay aroos baaba loo dhigay si uu kasii darna iyo xillimada fartan baxaysa yax haddaynu intaa kaga nimaadno qaybihii koobnaa ee riwaayadaha iyo dhinaca jilitaanka iyo arrimahaas maalmaha nasashada jimcaha oo kale maalmaha adiga ku khaaska aad nasanaysid inaad shaqo lahayn xageed jeceshay inaad kusoo nasato meelaheebaad jeceshay wallaahi horta markaan shaqo lahayn meelahan jecla inaan kusoo nasto midii igu degto walla waxaan iska jecela inaan dhalinyarada iyo asxaabteeda waqti lasoo qaato aad meelahaasoo kale ujoogto laakiin meelaan idhahdo halkaas baa ii khaas oo aan tagaa maalin kasta ma jirto maalin balba meel aad jeceshood u joog bedelataad dee ku xisaabtanta joog bedelidkaas oo dee wadamadeena kamid ah burco gobolkeyga xaggaasaan ku niyadsan waa hagaag waxaan soo qabanayaa hees la yidhaahdo heego oo aan aniga laftarkaygani aan aada jecelahay anoo heegada la moodo haweenka qorxoon la fayla ayay odhanaysaa heestaas niyounga joogme waan iska tegay marka waxay ka hadlaysaa qof inay qurux badan tahay inay istilmaantay qofna jeceloo tiri markaas inaan kusugo uma qalmad heestaas erayadeeda waxaa le abwaangaraad oo ii dhuuntay oo aanaya dhaweyd ogaaday inuu heestaas leeyahay abwaangaraadna aad baan u salaamaya aad baan u salaamayaa erayada abwaangaraad baale kama isagana aad uga salaamayna laxanka waxaa le walaashay yar deeqa shacni deeqana aad baan u salaamaya iyadii caruurteeda iyo odaygeedaba waan salaamayaa muusigana maxamed xaaji bal heestaas aad kau macaan ee qiirada iyo dareenka wadata ee codkii hibaaq gobaad bal waxaan leenahay markana daawasho wanaagsan
sooma yaalo hubaal rag bakan ka doortay naftoo hal abuur qoraysa hamiga kalgacayl saaqay bowlaha sooma yaalo hubaal rag bakan ka doortay habeenkiiyo maalintii iyuu hadalkiiba goostay anuu howlaha dhisayuu jacayl heeryada i saartay habeenkiiyo maalintii iyuu hadalkiiba goostay heshiiskii adag ka baydhay anoo heegada la moodo haweenka qurxoon la fayda walaal hoonka joogi maaye heshiiskii adag ka baydhay heshiiskii adag ka baydhay hayaanka dareenku raacay ilaa cumarkuu i qaaday hirdoogle anoo filaayay hawada dhalintaan ogaaday hayaanka dareenku raacay ilaa cumarkuu i qaaday hirdoogle anoo filaayay hawada dhalintaan ogaaday qadaygu abuurtee intaad hogga ii qodayso anaa hawshaada koobay anoo kuu sheegsanayaad hantaa qadaygu abuurtee intaad hogga ii qodayso anaa hawshaada koobay la moodo haweenka qurxoon la fayda niyo hoonka joogi maaye heshiiskii adag ka baydhay heshiiskii adag ka baydhay anoo heegada la moodo haweenka qurxoon la fayda niyo hoonka joogi maaye heshiiskii adag ka baydhay heshiiskii adag ka baydhay heshiiskii adag ka baydhay niyow hunga joogi maaye heshiiskii adag ka baydhay soo maha soo waan isu keenay madaxiiba jiba maybasaa heestaadkoo macaan markaynu barnaamijka bilaabaynay baa gobaade waxaad ii sheegtay inay ahayd heesihii ugu horreeyey markii aad fanka soo gashay waa heestaydii ugu horreysay aan qaado heestaasi waa hees aada u macaan oo dareen bal manugla waraagay qisadeeda iyo abwaangarad maadaama hadduu heestaasi sameeyey horta heestan markii la sameeyey fankaba kumaanan jirin moogtahay
marka inanka aadan garaadun baa sameeyey mahadaan ka gaadhay markuu sameeyey inanteedana laxanka isku daydo anigu laxankaba lamaanan haysan waxay tiri heestii waa laxamay marka oon iskuulka dhexdiisa iskaga xifdina markaa siri fanka galna hees baan xifdsan waxaan heesta baan xifdsan maxamed xaajiyo ito saas u bay marka adigoo de fanka jecel oo ku riyoodo islaahda bal alla ilaa xagga fanka laakiin qisadeeda aadan garaad iga sheekay laakiin imika ma wada hayo inaad hay xogeynta haysato horta inuu inanka sameeyey unbuu yeeshay oo jacayl inan jacayl ku dhacay inuu ka sameeyey laakiin wax badan kama sii xasuusto hibaaqay xagga asxaabta inamada jeceshayna xagga asxaab dhinaca fanka maadaama uu wixii iska fan yahay ma jira inama aad saaxiib la tahay oo aad iska walaaltiin oo aad xagga aad horta aniga marka hore hablaha saaxiibka iskuma badni wiligii qof inan baan la saaxiibo inantaasna waa saarakiin ayaduna sidoo kale habluha saaxiib kuma badna labadeeda baa saaxiiba ayaduna waa saaxiibadeedii horeysay anigana waa teedii horeysay marka inta kale inama ay buuxiya taasi kala mudnaadaan be iminka besti faraankayga saaxiibkayga qaaliga mar walaalkaya waa cabdijibaar gacaliye marka inamada saaxiibtinimadooda aad baan naku iskugu dheerna inta saarakin ka horeysay baraggun baan lasoo saaxiiba xagga aad baan jecel laygama marabay fanaaniinta waaweyn day ninka hore xagga fanahaan yaad jeclaan lahayd inaad ku dayato oo aad xiisaysaa wallaahi si kasta waxaan ugu jecelahay waxaan u jecelahay inaan ku daydo fanaanadeena weyneed khadra daahir cige hadday dhaqan tahay hadday fan tahay khadra daahirna maamada fanka aad bay qadarin noogu mudan tahay iyadana aad baynu salaameynaa fanka intee leeg baad aada u jeceshahay oo aad xiisaysaa inaad kusii dhex jirtid wallaahi horta waxaan jeclahaa intaan dhalinyarada ahay inaan weli da-da weyn hadii ilaahay igu simo inaan intaan dhalinyarada ahay aada ugu weynaan inaan ka baxaan jeclaa anigu aada ugu simo dad baad deed arkaysaa markaad weydiiso fanaaniinta qaar aad la kulanteelanayaan ilaa intaan hadaan muusigaygaasi dhegahaasba qaban maba joogi karaa cabaar bay ana waxaan jeclaa inaan xoogaa inaad waqti gabagabayso waqti inaan gabagabeeyo aad baad u mahadsan tahay weli daawadayaal waxaynu bartan kaga jiraa barnaamijkeeni fanka iyo sugaanta aan inoo soo qabto heesta inaabtiyo inaabto wuxuu isku mid sama hadda dhinacii loo dhawo haye bal heestaasna maxay odhanaysa heesta waxay dhahdaa inaabto waxaa sameeyey abwaan fuaad food cadde laxanka waxaa la cabdijibaar gacaliye muusigana mawluud xasan faarax dhameeye dhammaantood waan wada salaamaya anaguna waanu kula salaamaynaa dhammaanba asxaabtaasi aad salaantay heestan bal markana aynu ku wada nasano isu bixisa ruuxda laynaga dhexbee boqorkaan jeclaayo laba beer wadaagto isu bixisa ruuxda laynaga dhexbee barashada inaabto waa laysku beege barashada inaabto waa laysku beege igu biiri caashaqa barashada inaabto waa laysku beege barashada inaabto waa laysku beege igu biiri caashaqa
caashaqa buuggii jacaylkan boholyowgan qabo ku qoray baalashiisu u bandhigay adduunkee buuggii jacaylkan boholyowgan qabo ku qoray baalashiisu u bandhigay adduunkee adaboogta dhayaye badbaadii naftaydo adaboogta dhayaye badbaadii naftaydo babinabarka caashaqa adaboogta dhayaye badbaadii naftaydo adaboogta dhayaye badbaadii naftaydo babinabarka caashaqa baashow allahow ya barkhad kula wadaago bayd raaxa badaniyo ku badhaadha caashaqa baashow allahow ya barkhad kula wadaago bayd raaxa badaniyo ku badhaadha caashaqa heestii naabtow haddaynu intaa kaga soo noqono heestii hore ee dabcan heego ayay heestanina ka daba tagto waa hees aada u jacaylabe heestii horena waxay ahayd hees waxaan ku ii bal qofkii hore la eriyayo dee aada yara kala kacsan hibaaqay waxaynu ku jirnaa qaybihii daawadeysha hadan waxaseha ka nixin oo qaybihii dambe laakiin caawa waa wadnayo dee waxaynu joognaba ka badan intaas qaybihii ya intaas way ka badan tahay xaslaadada laga daayo hibaaqay dhinaca heesaha iyo dhinaca warwaadaha keebaad aada u jecesha inaad waxa uu ku fududaystiraday aada xoog usi jeceshaad miisaanka saarta horta faadimo anu inay isku mid yihiin baan aqaanaaba inay isku keemid yihiin oo kale waa fanuun ma odhan karo walahi kaasaan jeclaa anu kii lay dhiibaba waan jeclaa laakiin aad labada waa shaqadayda heesahaad qaado hees aada ugu jeceshay ma jirto oo aad tiraada hibaaq ahaan nigo heestaasi waa hees aada u fiican oo aada u xiisaysa heesahaaga ku dhowda kamid a heego heestaas maxaad ku jeclaatay odhan heestaas xusid bay iga mudanta heesteedii u horeysaan qaada moogtahay waa markaad fanka isku dayaysa marka fanka isku dayay heestii ugu horeysa isku tijaabiyo weeyaan markaa sidaa darteed baan u jecelahay qaaran kasii jecel iyadana way soo socdaan insha allah nabacaa way jeclaan kuwayna waan jeclaa anigu laakiin way soo socdaan laakiin insha allah marka dambe daawadayaasha laftirkooda iyaguna way kaa sugayeen heestaas heesaha dambe aad jeceshahay dalalka xageed ugu jeceshay inaad tagto hibaaqay mise maba jeclin inaad ka baxdo laantahay marka dalkeena laga tago kuwa kale waxaan aada u jecerto marka dibadda la yiraahdo horta beriga hore waan jeclay laakiin imika aada ma jecli laakiin hadday ii noqoto in meel aan tago canada beri baan garanayaa hore aan intaan xataa fanka soo gelin mushaashada caalankeegu ii saarnaan jiray
jacayl aan u qabo laakiin iminka maasha Allah dawan garaasada wadankayga iskaga iman qaba laakiin waa meelaha hobigaaga muqdishona waan jeclay inaan tago muqdisho caasimada Soomaaliya ayadana waan xiiseeyay in mar uun tago laakiin kulli wadankaygan number 1 markasta absolutely aad baad u mahadsantahay hibaaqay markana waxaan soo qaban doonaa bal daawadayaashu laftirkooda waxa laga yaabaa inay heesaha xiiseen u leeyihiin bal hibaaq bal xagga sheekooyinka inoo dambeeyaan inaad heesaha unoodan kaga soo qaadaan bal hees la yiraahdo qurquro tolo maxaa qurqurinaya dadku sareeyay jacaylkii oo dhan aywa heesta qurquro waxa la erayadeeda abwaan qoslaayay aad baan u salaamayaa laxanka iyo muusigana سودانك موسيقى سحردين محمد سحردين كعو حدا جعلك بين قرقورين نجيبيسي ماي waxa weeyst uurkaaga qaadi karin marbu oon kugu qasbaa inaad uu smir qaraad afkaaga u qoodho qurquro waad kaysatay يعني مربض واحد مرة قار كري كرين هذا جعلك درتيها هستاس قيبت فرسمة أنا بوري تشينو نجنير بالخلاص وهبين كبرامج كه إن جلقة بقعدنا إياه أهنا فرسمة يغان كبرامج كفن كي يسوقان ته برلان هست نكوري تشينو مربون كوكو قصبة إنادو سمير قرار أفكادو قردو قرقرو 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 واتكيستين وركاغو قاذي كرين مربون كوكو قصبة إنادو سمير قرار أفكادو قردو قرقرو 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 واتكيستين intee qodaxigaga jaban qalbiga damqayo ku mudan adoo qoonsaday wax badan maxaan qarsadaa dhibtoon weliba qarsadaa dhibtoon ilmiyaa qoomamada intee qodaxigaga jaban qalbiga damqayo ku mudan adoo qoonsaday wax badan maxaan qarsadaa dhibtoon weliba qarsadaa dhibtoon ilmiyaa qoomamada وديدا محان كديي إنان قولكاغ حلو كقوستي إنان شرو إناي قناعدوي هادانا قبريهم بكا حيقا إناي قناعدوي هادانا قبريهم بكا حيقا وديدا محان كديي inaan quulkaaga xidho ka quustay inaan jaro inay qanacdoy hadhana qabriga uunba ka xiga inay qanacdoy hadhana qabriga uunba ka xiga intaan ka fogaaday qurux qalfoof socdaan noqdo qofkii yarka naxaa bandhada caashaqo ii baday maxaan qayr mundartaa
intaan ka fogaaday qurux qalfoof socdaan noqdo qofkii yarka naxaa intii qaladaad saxdaa qadar inaan ku doorsadaa adoo quursaday naftana maxaan qaataa gafkoon weliba qaataa gafkoon u qiidayeeye xashada intii qaladaad saxdaa qadar inaan ku doorsadaa adoo quursaday naftana maxaan qaataa gafkoon weliba qaataa gafkoon u qiidayeeye xashada وديدا محان كدي إنا قولكاga xiro ka qoostay inaan jaro inay qanacdo hadana qabrigoomba ka xiga inay qanacdo hadana qabrigoomba ka xiga وديدا محان كدي inaan qolkaaga xiro ka qoostay inaan jaro inay qanacdo hadana qabrigoomba ka xiga inay qanacdo hadana qabrigoomba ka xiga inay qanacdo hadana qabrigoomba ka xiga way tiriyaa qubaad heestaadku macaan hadaynu intaa daawadayaal kaga soo noqono qurquro markii heesta qurquro markii lagu leeyahay waxay moodeen xaqii jacaylkii la qurqurinayo laakiin waxaan ku wari wax kale ka soo baxay dee qof aad u cabanayo oo qof wanaag dareesiye oo hadana moogtay dhibaatadii ay sii socoto hadana qofkii xumaan aan ka go'i karin aan go'aynin oo jacaylkii aad bay dhib badan tahay oo wato bal xaqa jacaylka ka warnay baa jacaylka anigu jacaylka saga laftarkiisa jecelahay وانا الأكل أنا سجن شعلها سجن تعش أنا شعلها وانقيمة أنت هو بدل مركا وأديك وهبا بتشعير صواني سا وأنا من سنة كل شعير متقدم بس عاد هذين هفك حاجة سوقنا هباقي waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena taawadayaasha maynaan jeclayneen maca salaameeno laakiin waqtiga ayaa bartaas leenoo sheegay oo wadadiisa loo xaqiiqa siyaadka maxaana baan runtii nala kala xigay هواقي هسه دقيسته فنانين تبات كدقيسته حق الرجع هسه لما فنان كيات عشان هسه أنا قارد سكدقيسنيس ورتا هسه هن إمك كون ما إمك كون دقيسته بس فنانين تجعلها فنانين حق الرجع هسه هذا دقيسته هسه ورتا إمك دقيسته هسه هن إمك دقيسته وقلت شعلها وأنا قلت شعلها هاي أفردان كسر أنت لو قداني هذا روان شعله. مرة واحد كل شعلات أفرتها وحن كلها. أفردان أنت عمان تلسم الدلوي. أيان كهلاي. أتبدو محسنتها يعني باقي وقدم بنتها. هل كان يتكلم تقولين صحافتها. وحن هل كان كسلامية وجهرين ارتوحن سلامية إريال تيفي شغالة ويني صدن عدو وجه الرئيسه walaalka barxad cas oo markasta igu garab taagan inaan fuliyo soo saareen waxiga dubada horumarkayga markasta dadka ka shaqeeya ku jira waxaan kaloo salaamay dhamaan familygayga walaalahay oo halka ku soo koobi karin hooyada iyo aabahay dhamaantood halka manad uga salaamay waxaan kaloo salaamaya walaashay Nuura Ibrahim odaygeeda iyo inankeeda yar Maxamed Yare waxaan kaloo salaamaya kooxdeeda Dayaxbaan dhamaanteed baan salaamay waxaan si gaar ah u salaamay gudoomiyahayga musishankayga saaxiibada qaali Saarakin Axmed Caalin Cabdi Jibaar Maxamed Ismaaciil laftayda dheer horta waan dheeriyaan lama soo koobi karo asxaabtii hebel bad ka tagtay may horta guud ahaan waan salaamay inta magacayga iyo muuqayga taqaan si guud baan u salaamaya gobolkayga tog dheer bulshooyinta ku dhaqan oo dhan salaan guud baan gudbinaya dhamaantood fanaaniinta Soomaaliyeed markasta joogan ku gaar ahaan kuwa Soomaaliland aad baan u salaamaya adigoo Faadmariyada mar labaad baan ku salaamaya aan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaaga طبعا مسقعدة مرة لبعض في بعض هباقي أنت أنا برامجك جبينين حبيت سؤالها يقول صايرة ده هذا ودي سمعت شقوينك
fanka marka laga yimaado maxaad jecesho kale inaad qabato ama aad jeclaan lahayd marka fanka laga yimaado saxaafadda xagga saxaafadda xagga adaad kale shaqo kale soo labisay saxaafadda shaqooyinkaas un kamid ah aan xagga dee fan iyo duubitaan iyo arrimaha bahay wallahi hadda shaqo kala soo inkastaana weli shaqo kale aan isku dayin may siyaasadda wallahi ka alla ganacsatada inaan qof ganacsada noqdo ayaan jeclahay insha Allah waan rajeynaya laakiin siyaasadda habeen laguma seexan habeen laguma soo toos may haddii la dhaw xataa ugu yaraa Ariel TV maamul xagga maamulka may ayaan qaban lahaa aad iyo aad baad umahadsan tahay anaguna waxaanu kaaga mahad celinaynaa sidii quruxda badnayd eed barnaamijkan oogala soo qayb gashay toddobaadkan kole hees baynu kaga tegi doonaa la yidhaahdo hilaada gubaysa soo mahe heesta eriyadeedii waan heestaas waa hees lamaana waxa wada qaadanaya Cabdijabaarka Cali hilaad baa la yidhahdaa eriyadeeda waxaa leh Salmaan Caydida baan la yidhaahdo muusigana Umar Shariif soo xaaskiisa balka baan uga salaamaya laxankana waxaa la dalab Saciid Deyr aad baan u salaamay abtigay aad baan u salaaminaysaa sidoo kale waan salaamay abtigay heestaad kow macaan anaga jeclaysanay inaan barnaamijka toddobaadkan ay nagala qayb qaato maadaama tahay hees cusub oo aad macaan iyadoo laftirkeedu daawadayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta oo gorahan baad kala socoteen xarunta TV-ga Ariel ee magaalada Hargeysa daawadayaal barnaamijku waxa uu mahad celinayaa injineerka barnaamijka Barkad Cas dhinaca muuqaalada editorka oo toddobaad kasta idin soo gudbiya barnaamijkaas oo aad u qurux badan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa madaxa farsamada injineer Cabdirus Ismaaciil Cabdi iyo waliba madaxa barnaamijyada Sakariya Xasan Sakariya Sudaysi iyo guud ahaan shaqaalaha Ariel TV barnaamijkana toddobaad kasta waxay la socodsiisaa anigoo ah Faadumo Ismaaciil Faadumo Riyaad daawadayaal waxaan idinkaga tegaynaa heestii hilaad iyo codadkii macaana Cabdijabaar iyo waliba Hibaaq Gubaad oo barnaamijka caawa igu marti ahayd oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo tan iyo intaan isugu iman doono dhinacayga barnaamijka xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo habeen wanaagsan وجلال كوابسي سيدي أتاهيبو ودوشي ساكو هورتي أيادهن كديغدي أيادهن كديغدي وجلال كوابسي سيدي أتاي هيغو ودوشي ساكو هورتي أيادهن كديغدي أحباقي قبادي هنكا ديغدي
hamigayga hilaadi gubaysay runtii amba heedhe naftii habranaysay doquu hibinaayo xurmaadu hanaysay hamuunti bogayga haddaad ka dawaysay haddaad ka dawaysay runtii hamigayga hilaadi gubaysay runtii amba heedhe naftii habranaysay doquu hibinaayo xurmaadu hanaysay hamuunti bogayga haddaad ka dawaysay haddaad ka dawaysay andhirta oo hogonaysaa oo caleeto adhaysay sidii aad tahay hoobaan oo dushooda ka hawrtay ayaan ku hawaystay ahibaqay gubadee ku hawaystay joogay kuugood ha qabsooray sida ay i hadhaysay ayaan ku habsiiyey gacaliya ku habsiiyey andhirta oo hogonaysaa oo caleeto adhaysay sidii aad tahay hoobaan oo dushooda ka hawrtay ayaan ku hawaystay ahibaqay gubadee ku hawaystay sidii hogal roobko halkan dhulka joogay kuugood ha qabsooray sida ay i hadhaysay ayaan ku habsiiyey gacaliya ku habsiiyey runtii hamigayga hilaadi gubaysay runtii amba heedhe naftii habranaysay doquu hibinaayo xurmaadu hanaysay hamuunti bogayga haddaad ka dawaysay haddaad ka dawaysay runtii hamigayga hilaadi gubaysay runtii amba heedhe naftii habranaysay doquu hibinaayo xurmaadu hanaysay hamuunti bogayga haddaad ka dawaysay haddaad ka dawaysay haddaad ka dawaysay